kusoo dhawaataan xafladda daafurka wejiga koowaad ee dhismaha dugsiga sare casriga ah ee Xaaji Cali Biixi. xilli loo baahnaa runtii buu yimid gobolka bulshada reer Gaalkacyo ayaana qayb weyn ka ahayd aasaasitaankiisii iyo inuu meesha soo gaaro. dugsigu wuxuu bixinayaa waxbarasho runtii u qalanta waxbarashadii looga baahnaa maadaama meesha gaab badan uu ka jiray isaga oo maartay daba socday dadaalo la soo bilaabay 1992 markay dawladdu ka baxday booska dadaaladaas oo ugu dambeyn gobolka Mudugna ay suurto gashay in xilligaas laga soo bilaabo. iskoolka waxa ka jiray runtii ardayda soo saaray 18 difcadood dugsiga sare ka soo baxday jaamacadaha jiray in xogaa soo wajahday cariir xagga ma aragtay capacity dhismaha ah sida aragteen 34 ilaa 60 dhul ah ka dhisnaa 12 galaas buu ahaa 2 gelin waa shaqeeya farac kale isagana waa jiray oo dhinaca garsoor ku yaala. waxa soo wajahay marka xaalad ah in ardada dhigatana aw aad cariir ugu yahay bulshada u baahneedna runtii uusan adeeg wada gaarsiin karin sanad bay aad iyo aad caqabad ugu noqotay cariirkaas. waxa iskoolka hor yaalay oo tashi badan la sameyn jiray bulshada ku xiran reer Gaalkacyo iyadoo yoolasha la degsaday ay kamid ahayd in maadaama waxbarashada emergency-ga laga soo gudbay dadku inay waxbarasho helaan waxbarashadaas oo wili gaar bay wada dhiganayaan bulshada ma aragtay intay awood ay isu keento maadaama laga soo gudbo xaaladaas in loo gudbo in la ardaydu hesho waxbarasho tayaysan deegaanka wax lagu baranayo uu noqdo deegaan la mid deegaanada ardayda la cayniga ah ee dawladaha caalamka dhamaan in ay helaan inta loo hanqal taago rotariya ayaa u ekeed markii hore laakiin 4 sano u dambeysay marba heer bay soo martay waalidiinta aad ugu mahadsan yihiin dhiirigelinta iyo garab istaagga ay noo muujinayeen marka aragtiyaha maarta la tacalluqa balaarinta iskoolka aan soo bandhigno arintaas oo ugu dambeyntii maantay in iskoolka Xaaji Cali Biixi oo helo lagu deeqo dhul aad iyo aad ugu qalma runtii masaaxo marka la fiiriyo location-ka meesha ku yaala marka la eego kaasoo aslana waxa ka fuli kara adeegii aan wadnay isagoo casriyeysan tayo leh bulshada intii horena uga sii maaragtay waxtar badan uu ka fuli doona hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan rabaa inaan wax yar xuso annagu lambarka iyo maaragtay iskoolku institution u ballaarto hadafkayagu ma aha kali ah hadafkeena waxa weeye ugu muhiimsan in dadka soo baxaya ay ahaadaan dad waxbarashada la barayo u bedela practice. waxa halku dhigo ardayda iskoolka Xaaji Cali Biixi cilmiga iyo suluuga lagu barayo noqon mayaan cilmi iyo suluug hadaysan hab dhaqanka ku biirin oo aysan ka mid noqon. saadaraada marka wax kasto wanaagsan ee ardayga la bara in uu u tarjumo ficil ayaa iskoolka laga maarmaan u ah oo shaqadayadu ay tahay laga soo bilaabo mushrifiinta macallimiinta murabbiyiinta asaadidada maamulka dhinac walba iyo waalidka oo focuska ay saaraan. waxa arintaas aan saa u leeyahay waxa way bulshadu waxay ka soo dhisantaa waa asaaska haddii ubadkaas ay dhismaan qoysas fiican baa dhismaya waddankeena insha Allah waa hagaagi doonaa. waxaan rabaa inaan mahadnaqo cid walba oo ka soo shaqeysay iskuulkan inuu ballaarto dhismihiisa quruxda badan la sameeyo dhaqaalihiisa muddada aruurinaysay iskuulkan oo sharaxaadiisa kolle gadaal inooga dambeyso wuxuu yeelan doonaa casrinimada dhismaha kaliya ma noqonayo waxay noqon doontaa insha Allah facility-ga iyo equipment-ga la keeni doono. ayaduna waxay inoo tahay in maanta gobolkeenan Mudug magaaladeena Gaalkacyo aan rajeynayna inaan lead u noqono in iskuulka ugu horeeyo casri garooba ee wadankeena laga hirgeliyo inaan u helno magaaladeena Gaalkacyo inoona noqdo dugsiga sare ee Xaaji Cali Biixi. ayaduna waxay tahay farxad gaar ah waxaan rabaa inaan bogaadin iyo mahadnaq gaar ah dadkaas u soo jeediyo. waxaan rabaa inaan ayadana codsi u soo jeediyo dhaqaatiirta iyo odayaasha meesha fadhiya. waxaan rajeynayaa wax badan oo inaga khaldan wadankeenan inaad dareemeysaan haddana aad dareemi kartaan wixii lagu sixi lahaa. ma tuhunsan in dhaqaale idinku baaqdo oo anaaba ka mid dadka inta idin yimaadaan ama 200 ama 300 ama 500 ama 1000 idinku qoran ka soo aruuriyo iyadoo gudiyo loo aruurinayo laga yaabo markaas inaad tala bixin keentaan laakiinse waxaan idinkaga baahanahay inaad xafiisyadana toos u tagtaan wadanka waxa shaqo ka socotana istaadi ah ku sameysaan. waxaan rajeynayaa cimrigiina inta ka harsan maanta xafladda inaan uga faa'iideysano in waqtiga waxa wadanka ka khaldan ay u badan tahay mid wax aniga iga mid oo kale uu sameynayo oo khibrad badan oo dawladnimo horena aan lahayn
marka ina xafiisyada timaadaan dadkiina ansaxdaan. waxaan jeclahay inaan soo koobo bandhig yar oo ku saabsan bal iskuulkan Xaaji Cali Biixi iyo guud ahaan tacliinta Puntland bal si aan focus aynu u saarno maraaxiish waxbarashada soo martay iyo ugu dambeyn iskuulkan waxa aan ka rabno iyo bulshada reer Gaalkacyo haddaan nahay kaalinta nooga aadan waxbarashada runtii asaasiga ah waxay muhiim u tahay inaan ka hadalno heerar badan bay soo martay burburkii dowladda dhexe kadib 1992 waxaa lagu bilaabay iskuulo ardaydu ay ku fariisanayeen koombooyin iyo jirgaamo waxbarashada halkaas baa laga bilaabay waxaan filayaa raggii koombooyinka ku soo fariistay inay meesha fadhiyaan tacliintu dabcan horumarkeeda waxay toos u taabanaysaa qofka iyo qoyska haddii qof tayo la helo waxaa imaanaysa marka qoys tayo leh haddii hooyo aqoon leh aan helno qoys aqoon leh oo tayo lahaa imaanaysa haddii qoys fiican la helo tayo leh waxaa imaanaysa bulsho tayo leh haddii bulsho tayo la helo dawlad tayo leh imaanaysa waxa wax isku xiran weey haddii dawlad tayo leh ay timaadana adduun weynaha wax la qaybsanaynaa marka meesha sabta ka qorsan tahay ma ahan dawladnimada waa waxbarashadii iyo aqoontii iyo wacyiga insaanka weey insaanka Soomaaliga ahay inta wacyigiisu jahli u badan yahay oo qofka waa arki doonaa percentage-ka ardayda wax dhigata inta percentage-ka ardayda ay dugsiyada aadaysa ay yar tahay waxa fogaanaya dawladnimadii iyo in qofka Soomaaliga caalamka wax la qaybsado duruufaha jira waxbarashada hal fasal ayaa laga yaabaa 60 arday ka badan inay wax ku dhigtaan waalidkii markii wuxuu leeyahay ilmaha wax lama baro ilmaha tayo ma leh ka warrama macalinka u soo galaya 60 arday wuxuu ardaydaas bari karaa wuxuu controli karaa wuxuu sixi karaa يعني وقرنaysa in ay iska tahay wax uu iska daadiyo kadibna uu ka baxo arintaas marka hadda anaga baxdo waxbarashada ahayna waa qiraynaa oo waa duruufo jira arday overcrowd isku ah oo fasaladii ka buuxa oo qaylinaya oo buuqaya oo macalinka uu san garan karin ardayga wax fahmay hatta arday badan oo indhahooda laga yaabo inay daciif yihiin hatta subuurada arki karaan aan la ogaan karin taas marka waa duruuf hadda jirta oo waxbarashada inaysan haysan deegaan ku haboon mid kale waxay tahay ardaydeenu waxay qaataan waxyaabo nadariyaad oo iska theory ah laabab ma haystaan chemistry ma arkaan physics ma arkaan biology ma arkaan haddii cell la yiraahdo ma yaqaano haddii la yiraahdo muxuu ahaayay magnesium ba waxa la yiraahdaa calcium magnesium kala saari karo laakiin theory ahaan waa isaga haystaan ardayda badankood markay jaamacada aadaan dhibaato kala kulmaan iyadana waa duruuf ardaydu inay 2021 marayaan inaysan wax laaba haysan waa arin aad u dhib badan waa laga yaabaa iskuulada qaarkood laabab inay leeyihiin oo markii hal laab oo 200 oo arday iskuul ay dhigato aad tiraahdo hal laab oo yar oo qolaan siinaya imisa arday gali ka faa'iideysan karta ama aad tiraahdo computeran siinaya 20 xabba oo 200 ay dhigato gormay kala fariisanayaan hal mar hadii ugu canqaado waa jabaya computerada marka iyadana waa waaqac jira dugsiyada uma diyaarsana deegaan ku habbo ardayda meel ay ku ciyaaraan malahan fasilada waa ciriiri xaafadii ku dhex yaalaan iyadana waa duruuf jirta oo taagan oo aad u dhib badan xarumaha waxbarashada haddaan haysaniyaa maalgeliyay badankood waxaa maalgeliyay hay-adaha deeqaha laga helo oo wasaaradda soo mara iyo caalamka islaamka eedihii ka jiray oo hadda iyaguna iska wiiqmay iyo runtii bulshada Soomaalida ah oo anagu aan nahay oo iyadana qayb ka mid ah portion ay tahay laakiin badanaa deeqa waxay ahaayeen dibadaha ka yimaada laakiin iskuuladaasi waxaan anagu u naqaanaa iskuulo la yiraahdo emergency education emergency centers waa xarumo emergency isaga badan oo marba laga yaabo iskuulka baahidiisa inta la fiiriyo laba qol loogu daro waxa laga yaabaa marka wasaaraddu ay qaybinayso kale in Gaalkacyo oo baahi weyn ka jirto la yiraahdo mesela iskuuladaas la siinaya iskuulka marka waxa laga yaabaa in laba qol loogu daro ama hay'ad ay timaado ama saddex qol ku darto ama iskuul la dhiso laakiin iskuuladaasi waxa laga yaabaa inaysan baahidii deegaanka bulshada Gaalkacyo ay rabtay aysan dabooli karin wasaaraddu waa dadaalaysaa oo hadee dhaqaale ma jiro waxa laga yaabaa percentage-ka xataa miisaaniyadda dawladda inaysan wada helin dadaal xoog badan bay sameynaysaa laakiin wali baahidii iyo mustawihii aan rabnay ma joogo طبعا waxyaabaha iyadana kamida oo xusida mudan oo hadda statistics ugu dambeeyay wasaaradda waxbarashada ay soo saartay gudoomiyaha waxbarashada waa jooga net enrollment rate ardayda gaartay waxbarashada guud ahaan Puntland oo laakiin waxa weey waxbarashada dhigata iskuulada aada waa 57.2 ardayda waxbarashada gaartay
waa primary kan ka hadlaynaa dugsiyada hoose ka hadlaynaa ilmaha waxbarashada gaaray oo iskuulka aada waa boqolkiiba 57.2 waxa weeye waa tirakoobka wasaaradda waxbarashada Puntland ilmaha aan waxbarashada aadin oo wali iskuulka banaanka ka joogana waa 42.8 wax ku dhow boqolkiiba 50 carruurteen iskuul ma aadaan marka warrama bulsho boqolkiiba 50 ilmihii waxbarashada gaaray aan wali iskuul aan aadin oo uu waxba baranayn waxaan filayaa in dhibaato aad culus ay tahay طبعا دورك samafalka iyo bulshada rayidka anaga bulshada rayid baan nahay caalamka xarumaha ugu badan dawladda ma dhisaan waxbarashada gaar ahaan iyo duurka cibaadada meelaha lagu cibaadeysto ama kaniisadaha ha noqdaan ama masaajid ha noqdaan ama qubuudiyiinta meelaha ku caabudaan waxay doonaan ha noqdaan xarumahaas waxbarashada iyo meelaha cibaadooyinka adduunka bulshada dhisata haddii laga yaabo Mareykanka waxa laga yaabaa in dawladda xarumaha ugu badan in loo haysto ay dhisato laakiin waxa laga yaabaa waxa weeye shirkadaha ugu badan bulshada qaybaheeda baa ugu badan dadka dardaarmaha ugu badan marka annaga bulsho ahaan role weyn ayaan ku leenahay oo aysan ahayn kaliya in dawladda wax laga sugay dawladdii kacaankii baa laga bartay inay iska wax qabsado dadka inta ku baraarujiso oo dawladdu wax dhistay iska wax qabsado waa arrin la rabo inay sii socoto oo bulshada hadii dawlad joogtay hadii joogay bal rabo inay xarumahooda waxbarashada iyo goobaha ilaahay ku caabudayaan in la dhiso run masaajidda bulshada waa dhistaa laakiin isbitaaladii iyo iskuuladii iyaguna waa meelo runtii u baahan in bulshada aan ku wacyigelin inay dhisaan Xaaji Cali Biixi markaan u soo laabto dabcan 2001 waa la aasaasay ilaa arday ku dhow boqolkiiba waxaan ka wadaa 969 arday waxa kun ku dhow baa dhigta wiilasha hadda iskuulka dhigta waa boqolkiiba 47 konton iyo labana waa gabdhaha gudoomiyaha hadda kaftameen waxaan ku iri marxalad waxa jirtay hay'adaha oran jireen girl education environment waxbarashada gabdhaha kor loo qaado waadhow waxaan u maleynayaa in imaan doonto waxbarashada wiilasha kor loo qaado wiilasha waa tahriibaan dhibta ku badan waa la xirxiraa marka dhib badan baa ka jirta hadda gobolka Mudug sanadkii hore gabadhii ugu sareysay oo number 1 gashay Xaaji Cali Biixi ka baxday Mudug marka gabadhaas ay ugu sareysay hadda midisiinka jaamacad barafka dhigataa waxaan filayaa sanadaha ugu dambeeyay badan markasta gabdhaha ugu badnaa wixii kaalmaha galay marka halka shukri iyo maamooyinka iyo waxa weeye dadaal fiican baa la muujiyay laakiin waxaan rabnaa bal wiilasha in la dhiirigeliyo tacliinta in ay si xoog leh loo dardargeliyo oo gabadhan hadii wax barataan waxa aad u qurux badan wiilasha runtii dacfi xoog leh ka jira waa arrin khatar leh oo xoog badan oo la rabo in waalidka lagu baraarujiyo wiilasha waxbarashadooda ma fiicna gabdhaha ka dadaal badan oo ka waxbarasho fiican 322 arday ayaa deeq waxbarasho helay oo qaar loo diray Jordan iyo Suudaan iyo Pakistan iyo meelo kala duwan iyo jaamacadaha localka dhakhaatiir iyo injineer badan baa ka soo laabtay agoon runtii ilaa 120 agoona ayuu iskuulka hayaa oo iyagu si free wax ku barta dabcan insaanka hadii wax la baro oo la maal gashto waxa weeye natiijo fiican ka soo baxaysa baahida hadda iskuulku uu qowso maamulaha sheegay 34 lagu dhiftay 60 dhul ah ayaa hadda ardayda oo 12 fasal ah ayaa kunkaas wax ku bartaan aad bay runtii ugu yartahay waxa qorsheenu yahay in hadii ay baydmo insha Allah taala dhismo cusub iskuulka in loo hirgeliyo dhismaha cusub qorshihiisa waxa weeye 24 fasal inuu yeesho oo fasalkiiba 35 arday ka badan inaysan dhigan karin 35 arday ayaa fasalka ugu badan ay tahay waliba taa nafteeda la isku haystaa oo marka laga hadlayo class managementiga 35 arday macallinku ma maamuli karo wali ay dood jirtaa laakiin duruufteena nooma saamaxayso inaan inta ka yareyno iskuulka inuu sidoo kale laababkii biology-ga iyo chemistry-ga iyo computer-ka intaba waa kamid iyadana waxyaabaha la dhisayo maktabad qaadaysa ilaa 5,000 oo buug oo kitaab oo aan ahayn manhajta kaliya kutub badan oo ardayda ay akhristaan ardayda gaalkacay oo dhan ay imaan karto meel ay imaan karto xafiisyada maamulka ilaa 9 oo iskuulada dhibta jirta waxay tahay maamulihii baa wuxuu isku yahay maamule iyo arimihii ardayda iyo ninkii banaanka aadayay iyo kii waalidka qaabilay isaga isku wada marka maamulihii tension ma laha pressure baa ku furan iyo cafeteriooyin iyo gardens gabdho iyo wiilal bal iyo garoomo ay kubadda ku ciyaaraan carruurta wuxuu xaqiijinayaa iskuulku insha Allah taala manhaj tayo leh oo isku sidkan manhajkaas dabcan English buu noqon doonaa primary-ga ilaa secondary-ga marxalad waxa jirtay iskuulka uu laba manhaj kala lahaa ardayda wareer bay ku keentay marka waxaan xoojinay in ardayga wixii TV-ga science uu ku dhigto English labada maado oo Carabiga iyo tarbiyadana in la xoojiyo oo manhaj xoog badan uu noqdo iyo macallimiin ku takhasusa maadooyinkaas gaar ahaan
daraasaad islaami iyo shariicada bay yaqaanaan waxaan ku kordhinaynaa iyadana ku xoojinaynaa waxbarashada madaniga ah oo ilmaha waddanka waxba ka aqoonin oo waddaniyad aan lahayn baa soo baxay marka in waxyaabaha la xiriira civic education in la xoojiyo iyo suugaanta af Soomaaliga iyadana barnaamij extra curriculum ka baxsan manhajka inaan ugu darno sidoo kale goobta waxbarashada saan soo sheegay agabkaas kala duwan bay yeelan doontaa oo computeriska ilaabka ah waxa intaas sii dheer ardayda ka baxdana marka manhajkaas iyo macallimiintaas tayada leh waxay xaqiijin doonaan inay adduun weynaha jaamacadaha doonaan oo la xiriira dabcamaadooyinka wax ku barteen ay aadi doonaan deegaanka tacliintan wuxuu noqon doonaa haddii ay ilmo deegaan ku habboon miisaaniyadda marka ku baxaysa dhimahaas mashruucaas weyn laga sheekeynay maxaa ku baxaya ilaa hadda estimated budgetka aan ugu talagalnay 588 kun wax ku dhow baa ku baxaysa fiigarka waa laga yaabaa inuu weynaado laakiin mashruuca productionkiisa iyo hadafka aan ka leenahay weliba intaas inuu mustaqbal ka sii weynaadaan rabnaa oo istaraatiijiyada aan sameynay waxaa ka mid ah magaalada qaybaheeda kala duwan baan qaybinay meesha hadda laga dhisi doono mashruuca marka laga yimaado garsoor oo kale iskuul baa loogu talagalay boos baa loo gaday primary ah qaybaha kala duwanna hadda bulshada qaybaheeda kala duwan baan wada hadal la furnay oo iyaguna mustaqbalka inay ka qayb qaataan iskuulka si istaraatiijiga inuu u baaho oo uu magaalada qaybaheeda kala duwan u gaaro fayska koowaad marka ilaa $302,000 ayaa qorshuhu yahay inuu ku baxo oo 16 fasal iyo maamulkii buu noqonayaa qayb fayska 1 phase 2 wuxuu noqonayaa dhamaystirka inta kale marka hadda $302,000 ayaa phase 1 noqon doona sida uu ekaanaya mashruuca marka bulshada reer Gaalkacyo waxaan ka rabnaa inay mashruuca ka qayb qaataan oo qayb ay ka noqdaan waayihii carab wax laga sugi jiray iyo hay'ada samafal waa dhamaadeen maanta waxa weeye qof walba inuu ku tashto xoogiisa iyo jeebkiisa iyo muruqiisa waxay tahay horumarka bulshada marka waxaan rabnaa insha Allah taala inuu noqdo bulsho mashruuca uu ka yimid isla markaana iyadoo ay dhisatay maxsuulka iyo natiijada ka soo baxana iyadoo ay leedahay marka mashruuca waxaan rabnaa insha Allah taala inuu bulshada qayb libaax ay ka qaadato oo markaasna ay laf dhawr u noqoto mashruuca qaybahaas uu noqon doona qaybta yuuda u eg waa qaybaha waxbarashada waa floor 1 iyo floor 2 oo isku saaran waa 24 fasal qaybtaas kore iyadana waa qaybta hoolkii iyo qolalkii laababkii kombiyuutarada qaybtana waa qaybtii maamulka oo ilaa 9 muxuu ahaa qolal ah garoonkii ilmaha ku ciyaari lahaayeen gardenis dadka ay ku nastaan qaybta ugu dambeysana waxaa loogu talagalay qaybo muxuu ahaay cafeteriooyin meelay ardayda wax ku cunaan dhismaha muuqaalka iskuulka saan noqon doonaa dabcan iskuul noocaan oo kale ah Puntland kuma yaalo laakiin reer Gaalkacyo baa insha Allah taala dhisan doona waxaan rabnaa in role model noqdo qaybahaas saas u ekaan doona waa ilaa qaybahaas waa ilaa 5 block 3 block oo waxbarasho iyo 2 block oo maamulkii iyo laababkii ah iyo qaybaha gardenis mashruuca barka guud ahaan iskuulka cusub mashruuca noqon doona shay walbana dabcan maalin uu bilowdaa wuxuu isu bedelaa shay xaqiiqo ah waxaan rajaynaynaa inuu kaligiis noqonin oo gobolka mudug oo dhanna iskuulo noocaan oo kale aan iska wada kaashano oo aynu hormuud ka wada noqono aan ka wada qayb qaadano runtii waxaan ka mid nahay waalidiinta iskuulka in badan oo ka mid ah dadka halkan fadhiyana aad moodid inaan wasi xoogaalsanahay iskuulkuna sida la sheegay wuxuu ku yaalaa meel aad iriiri u ah shaqo aad iyo aad muhiim u ah buu bulshada u hayaa sida la adligeed maanta oo qayb ahaan dhulkii waxbarashadaas lagu fikin lahaa la helay oo dadka muxsiniinta qaar ay inoogu yabeehaan waxaan dadka kale inta kale ka rajaynaynaa ummaddu in iskuulkaas laga qayb qaato dhismihiisa iyo ballaarintiisa laguna garab istaago maamulka iskuulka iyo inta waxbarashada qiimaysa intaba lagu garab istaago waxaan dadweynaha ka codsanaynaa oo aad iyo aad aan uga rajaynaynaa in iskuulkaas sidii loo ballaarin lahaa ama culayska ka haysta macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardada intaba in laga qayb qaato oo runtii aan la fududaysan waxaan rabaa inaan aad u dhiirigeliyo in maaragtay laga qayb qaato waxbarashada anagu ka haween ahaan oo ka qayb qaadan doonaa dugsiga Xaaji Cali Biixi dhiirigelin iyo maaragtay waxyaalo badan baan kaga qayb qaadan doonaa haday tahay tabar
hadday tahay wacyigelin inaan waalidiinta maaragtay ku wacyigelino in ilmaha lala raadiyo waxbarashada tayada leh inaan kaga qayb qaadano inaan ilmaha laftigooda booqano aan dhiirigelino oo dhinaca waalidka aan ka dhisno oo aan noqono hooyooyin ilmaha saaxiib la ah oo ilmahooda ka ilaaliya saaxiibka bannaanka ah dhibaatada ugu badan oo haweenkayga haysata waxa weeye ilmahoodu waxay yeeshaan saaxiib bannaanka ah say ilmaheeda bannaanka ugu saaraysoba ilmaheedu wuxuu yeeshaa saaxiib xun oo bannaanka ah hooyadu hadday ilmaheeda la saaxiibto waxay soo saari kartaa ilmo bulshadu ka nabad gasho akhlaaq ahaan isagu dhisan qayimkiisa iyo diintiisana maaragtay ku taagnaada laana way control kartaa laakiin markii ilmahaaga aad bannaanka u saartido qofkii ku yimaada aad priority siiso tira ordo bannaanka ku soo ciyaara martiba ay la joogteen ilmahaaga wuxuu aadayaa bannaanka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelinayaa bahda xaaji cali biixi runtii waxaan ilmo cali biixi uga ducaynayaa sida qiimaha badan ee ay wixii uu aabahood aasaasay ay maanta u hayaan waana nasiib ilaahay bixiyo in maaragtay waalidku waxyaalaha uu ku tabcay miraheeda uu ilmuhu sii wado waxaan leeyahay ilaahay haydan la garab galo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa idin garab istaagaynaa dadkiina dhammaantiin wax fiican oo qiimo badan baad wadaan haddana maaragtay insha allah biidmillaahi kariim ballaarintaas ka haween ahaan anagu qayb libax baan ka qaadan doonaa xilligii ay bilaabanto insha allah waan u qareemi doonaa haddii ilaahay gaalkacyo waxkaasaana soo maray dhibkaasaana soo maray historygii fiicnaana waa laga sheekeeyey dhibaatooyin badanna soo mara laga sheekeeyey waxaan u baahanaa action maantay inaan wax hore u qaadno waxaan isbeddel ku samayn karno waa tacliinta iskuulkan keliya maaha waddanka wuxuu u baahan yahay iskuullo ka badan tusaale idiin sheegaya iskuulladeenna waxaa noo fadhiya axmed huruuse tirakoobyada waa maqlayseen 10,000 oo arday 10,011 arday baa sanadkii hore u fadhiisatay dugsiga dhexe imtixaanka dugsiga sarena waxaa u fadhiisatay 4,942 intee u dhaxaysa puntland oo dhan baan sheegaya marka 5,000 xaggee aadeen 5,000 mid ma tahriibeen waa inaan isweydiino maxaa yeelay ardayga sideedaadka baasay xaggee kaloo aadi lahaa waa inuu secondary galo marka maxaa keenay in kala bar aysan secondaryga ka bixin marka anigu waxaan aaminsanahay 42% wasaaraddu sheegtay ka badan ayaan wax baranin guryaha marka iskuullo meel walba guri baa laga dhisay iskuul iyo bannaan iyo meel ilmo ma garanaysa wax lagu bari karo ma laha labada baahi oo gaalkacyo ugu badan waa dugsi quraan iyo iskuul masaajidada hal saf wax ka badan kuma tukadaan waad aragteen marka marxaladan soo socota dadka wax bixiya ku dhiirigelin inaan dugsiyo badan sameeyo warka intaasaan uga baxayaa waxaan rabaa yaboohii baan bilaabaynaa insha allah yabooha waxa ugu horeeya dhulka بدل دكتور بشير علي بيحي المع حاج علي بيحي وحنا مجيء ماشي كقرن مجيء وضيع ماشي كقرن تاريخ دي ولا شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكفر حسنا إن نروح يبوها ما دام أنه قال البنك ليش المتري على نقاط الماي مركا أنه إن شاء الله وحنقيه هو إن دار بيحنا هي لحنا كنا دولار قفك حتى على العقد بحنين dhul bixinaya guri bixinaya waa laga qaadaya waa la gadayaa caadi weey shirkadaha waaweyn aweys cabdi jarato maawreeyaha golis gadaal baa ka soo sheegay allah yubaarak fiikum allah ku barakeeyo somtel amtel ما شاء الله الله يديم بركة وسوينا موسى على الحرير يا أويس قدك ومغليا قدومية محمد عبد النور الله بركة شخصيا ويدق هان معها شخصيا الله يبارك فيك لا بكون $1 ما شاء الله الله يبارك شركة نبكو ياسين شركة نقد بنا يا واقع قيب قلينا شكري haweenka gobolka mudug $2,000 aad iyo aad baa mahadsantihiin ilaahay xoolaha idin barakeeyo runtii saan dawlad u sugayna dawlad wax loogu haleynayay cabdiraxmaan ganacsade heye Obic group insha Allah waa ka soo sheegaynaa
إن شاء الله شيخ محمود أو فرح إلهي أكو بركيو annagu ka urur ahaan waxaanu ballan qaadaynaa haddii ilaahay idmo halkaa waxaa lasoo bandhigay in loo samayn doono dugsiga xaaji cali biixi qol IT computerisa hadday laba qol dhisaan labadaa qol baanu computer geynaynaa laakiin haddaan annagu keenno 40 computer bulshadii iyo iskoolkii baa laga rabaa inay intii oo kale iyaguna keenaan annagu ka urur ahaan haddaad qol dhistaan qolkaasaanu qalabaynaynaa waxaan ku yoohayaa waxaan hayaa dhul boqol oo waqaf oo 150 boqola aan wax jecel bixi ugu wajinay الله يبارك فيك نولكاس وصور شيء ساكي إلهي أو بركيو سجى أبي يو أهلك المعدن شيخ دوردن وعلى قالوا وريجي إن شاء الله عبد الرحمن تضامن إن شاء الله أنا وتبعي تضامن أهان شغالها يجا يوحي إنه هو ضد محسنين إن شاء الله تعالى لك عشان كرنبا هذا وحنو أنتي أيامها برنامج كأنت ديارنا إني waxaanu haynaa insha Allah taala suuq lagu kabay doonaa $60,000 saddexdii boqol aad maqlayseen 60 ilma xaaji cali waa qaatay 60na tadaan maxaa soo haray ilma xaaji cali ilma biixi alla afwan reer biixi xaraf ha ma sha Allah tadaamuna 60 marka baashi waa dhowdhowdayaan la baqin yaa 60 kale iyo qaadanaya dhulka farxaan baa ku xiga kombiyuutarada iyo shirkadaha waxaan ka rajaynaynaa insha Allah dhawaan baa la bilaabayaa iskuulka si sanad dugsiyeedkan markuu dhamaado loogu bilaabo haddii alla idmo shubku iska dhibadan yahay waa dareen farxad leh in maanta iskuulkii aan ka baxay oo aan wax soo saarkiisii ahaa aan u daahfurayno wejiga koowaad ballaarintiisii iyo muxuu ahaa weynayntiisii halkaana aan uga bilownay wejiga koowaad ee yabooha waxaan leeyahay cid walba wax ku bixisay ajri xasanaad Allah ka siiyo insha Allah taala anaga ka ganacsata ahaana ama roolka ganacsatada ahaantaana insha Allah waxaan rabnaa inaan u qareyno meel walba iyo juhdi walba aan ku bixino in iskuulkaanu noqdo iskuulkii koowaad ee gobolka Mudug kana shaqeeya soo saara arday taya iyo waxa waaye horumar ka shaqeysa insha Allah taala waxaan ku dhiirigelinayaa iskuulkan kan koowaad noqonay gobolku iskuulo badan oo noocaan la yeesho himilada inta leeg waa gaari karnaa runtii baahi badan baa loo qabaa waxbarashada waa la dadaalay iskuulka Xaaji Cali Biixi iyo iskuulada kaleba duruufo badan bay ku soo shaqeeyeen aad iyo aad bay muhiim u tahay waxbarashadu dhismahan hadda casriga ah runtii wax badan buu faa'iideynaya aad buuna muhiim ugu yahay ummadda marka waxaan soo jeedin lahaa Xaaji Cali Biixi inay laftigeeda bilaabaan hadda casriyeyn bay bilaabeen insha Allah waana hagaagaysaa laakiin waxbarashadu muhiim bay inoo tahay in tayada waxbarashada aad iyo aad looga taxadiro oo loo hagaajiyo midda labaadna waddanka Soomaaliya hadda meel kasta ay joognaba xilliga waxbarashadu aad u kooban yahay kalinka hore oo kale hadda 4 saacadood baa la bartaa runtii waa waqti ku yar xagga waxbarashada dunida meelaheeda kala duwan waxaa ugu yar 8 saacadood wax la barto marka dhalinyaradeenii iyo carruurteennii qof 8 saacadood wax baranayay ma u dhigmi karaa qof 4 saac baranayay maya marka inaad Xaaji Cali Biixi la bilaabaan jeclaan lahaa iskuulka oo kale 6 bal 4 saac isku markuu war dari karaa in waqtiga 2 saacadood lagu daro kale in loo horsado ummadda 24 saac carruurtii 4 saac ay baranayaan inta kale energy-goodii banooni iyo isdagaalin iyo waxay ku kharash gareeyeen ee waqtigooda wax kale waan fiicnayn meelaha kale 12 saacadood qaar baa baranaya qaar baa 8 saac baranaya markuu guriga yimaado ma ciyaar karo hadda institution-ka wax yar la yiraahdo waalidku isha mari inuu saxuu ku qasbay marka insha Allah dhismaha casriga ah bilowdeen inaan noo raacisaan wax jeclaan lahayn maadaama waalidiinta aan nahay waqtiga laftigiisa inay kordhisaan wasaaraduna arrintaas ay iyada laftigeedu idinku saacido oo iskuulada kalena
inay kaga daydaan aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa waxaan u soo jeedinayaa runtii u mahadcelinayaa intii hadda yabo ah halkan wax ku yabahday maalkooda allaha barkeeyo ilaahay maalkooda ha barkeeyo ilaahay maalkooda ha barkeeyo awlaadana allaha hagaajiyo inta dhiman oo talada ugu maqan iyo intaan dareemayna inay jecel yihiin inaysan wax ku dhawaaqin hoosta iska qoraan iyagana insha allah allah u fududeeyo wax wanaagsan allah ka soo qaado intana dhegeysan doonta waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan dhismaha Xaaji Cali Biixi wax wanaagsan bay wadaan aan ku taageerno waqti aan ku taageerno dhaqaale aan garab istaagno dal iyo dibadba aan garab istaagno wax wanaagsan cidda horteeda garab baa loo noqdaa waxaynu rabnaa inaynu isbedel ku samayno habkii ubadkeenu wax u baran jireen anigu waxaan ka mid ahaa waalidiintii caruurtoodu ay dugsiga sare Xaaji Cali Biixi ka baxday 3 sano ugu dambeysay 3 arday oo ilmo maxamuud ayaa dugsiga ka baxay waxaanu dugsigan ku xasuusanaa 20 sano in ay si xiriir ah u wadeen waxbarashadii oo marna aysan kala go'in oo sanad dugsiyeed walba arday cusub la qaadanayay sanad walba arday cusub ka qalan jabinaysay oo wax gaab ah haba yaraatee aysan ku imaan waxaan kaloo ku xasuusanaa in 18 dacfadood oo dugsi sare ay ka soo baxday oo dad 1000 qof gaaraya oo ay ka mid yihiin caruurtaydii iyo caruurta kale oo reer Gaalkacyood oo mas'uulka u ahay ay ka soo qalan jabiyeen marka iskuul aan public ahayn oo dawladda ku magacawneen loo qareemayo xogaa dadku waxay isweydiinayaan maxaa kalifay 900 oo arday wax ka barata 148 kamid ah si lacag la'aan wax uga bartaan halka waxa ka muuqata 20% iyo something inay ardayda wax ka barataa ay yihiin arday aan lacag laga qaadin kuwa kale waxa laga qaado iyo culayska dugsiyada saaran oo aynu dareemaynana in la kaba mooyaane inaan waxba laga dheefin أنا waxaan kamid ahaa waalidiintii iskuulka 8 sano ugu dambeysay la macaamilaysay maamul caamil iyo rag kaleeto waxa imaan jirtay mararka qaarkood fiiga ardayda laga qaado inaysan ku filnaan macallimiinta jeesada dabada haya farxalkood oo waalidiinta la oran jiray waxaana jira magaabkaana jira marka iskuulkan waa iskuul 100% aan wax ribixa ka soo galay reer Xaaji Cali Biixi ama hay'adda tadaamun ama macallimiinta sidaa darteed ayaa kaliftay in maanta aynu u qareemno oo yahay wax ummadda reer Gaalkacyo u dhaxeeya oo wixii lagu kordhiyay ay tahay wax Gaalkacyo la taray ee wax shakhsi la tareysanahay inta hadda halka uga baxo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa reer Biixi oo runtii raadkii wanaagsanaa ee adeer Xaaji Cali Biixi iyo raggii kale odayaasha hal doorka ahaa ay Gaalkacyo ku gaarsiiyeen in gobolada kale Soomaaliya boorama hadda la barbar dhigay laftigeeda halkaan maalin dhaweyd waxa ka hadlayay maamulaha isbitaalka weyne Gaalkacyo oo lahaa ardaydii waxaan ahaa 70-meedii dhigan jirtay iskuulka Cumar Samatar waxaana la fadhiyay arday ka timid boorame waxbarasho soo doonatay Gaalkacyo soo doonatay maanta halka Gaalkacyo waxa weeye waxbarasho looga aaday boorame marka waxaan rabnaa inaynu soo ceshano taariikhdii wanaagsaneed ee Gaalkacyo lahayd iskuulkan iyo iskuulada kale oo Gaalkacyo ku yaalana aynu casriyayno si ay ula baratamaan tacliinta sare ee ka jirta gobolada kale Soomaaliya sida boorama aynu tusaalaha soo qaadanay walaalaha iyo Soomaaliya degan yihiin aad iyo aad baan runtii rabnaa in dhammaan iskuulaadka Gaalkacyo ku yaala ay wadadan iskuulka Xaaji Cali Biixi ama fishinkan qurxoon ay soo bandhigeen in isagana la maro maanta aynu Xaaji Cali Biixi dhisno برهنا إنه عمر سمتر كحجنه صاد ما أنا المشكلة كحجنه هدي لا يدمه وحكليه إنه باهنا هي قال عدانا هاي لبا إنه وحوي وحكي بدله وقتك شغلة ورنتي آدوير يا وقتك وحبر الشذا وسن آدوير لبا هدينا وحكي بدلين هرمرك أرمينا هيك سنة مجاري كرنا حفيسة دولة دمرك الله تجوا سعالها على الشغل كوبين كوا جنا عصير لفتي جوا كوبين هنتو بدل وحنا منا وكين هورسكنا إنه بدلنا si producting waxaan soo saareyna ay u bataan hadii 8 saac shaqeyno wax 8 saac u dhigma ayaan soo saareyna hadaynu 4 saac shaqeynana wax 4 saac u dhigma baan soo saaraya marka inaynu working hours ka badino iyo inaynu ardayda xilliyada ay wax baranayaan aynu kordhino dalka aan dariskanahay Nairobi ardayga aroortii baa laga qaadaya gaari ka qaadaya basta 5 galmna lagu keenaya ardaygaas waa daalan yahay sida adow fiqigu noo sheegay saacad ama laba tuition la siinayo markii waa dhacaya hadii laakiin 4 saac ama 5 saac ama wax la mid ah oo ardaygu maqnaado
energyna ku jiro wuxuu rabaa meel uu ku saaro energygaas tirada badan leh kubad buu ciyaarayaa whatsappkii buu gelayaa game buu ciyaarayaa video buu daawanayaa mid baa banaanka u taagan oo shukri saaxiibkii banaanka ay sheegaysa buu aadayaa si saaxiibka banaanka social media tirada badan waxyaabaha ardayda uga mashquulino aynu kordhino waqtiyada waxbarashada ardaydu ay aadayaan ama ay jirayaan aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaan halkaan rabaa inaan baaq uga diro dhammaan ummadda islaamka oo muxsiniinta ah in ay iskuulkan xaaji cali biixi oo iskuul aan faa'iido doon ahayn ah in tabaruciisa laga qayb qaato